سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانكو سلامي داوة ميل كستو aad ka joogta daafaha caalamka ee dunida ku soo dhawow mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa taariikhda fanka Soomaaliyeed gaar ahaan taariikh gooban oo aan ka soo diyaarinay fanaanka Cabdi Tahliil Warsame Cabdi Tahliil Warsame waxa uu ahaa fanaan aad iyo aad u weyn ummadda Soomaaliyeedna magac iyo sharaf ku dhaxleh Cabdi Tahliil Warsame waa fanaan Soomaaliyeed oo aad loo yaqaano geyiga Soomaalidana laga yaqaan kuna caan baxay magaca cod wanaagsane sababtoo ah waxa uu ka mid yahay kuwa ugu codka wanaagsan fanaaniinta kuna heesta afka Soomaaliga Cabdi Tahliil Warsame heesihiisa aad ayaa loo jecel yahay waana mid ka mid ah fanaaniinta qiimaha iyo mugga weyn ku dhaxleh ummadda Soomaaliyeed waana madadaaliye caan ah qof walba jiil walba oo jira iyo shakhsi walba oo jiran oo madaxa u ruuxo markii uu maqlo codkiisa tolmoon ee aad ku macaan fanaanka Cabdi Tahliil Warsame waxa uu ku dhashay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Buluburte ee gobolka Hiiraan sanadkii 1953 taariikhda milaadiga Cabdi Tahliil Warsame waxa uu iminka ku xanuunsanayaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya Cabdi Tahliil Warsame fanaanka Cabdi Tahliil Warsame wuxuu leeyahay tiro badan oo heesa ah kuwaasi oo isugu jira wadani jacayl guubaabo dhiirigelin haasaawe ammaan duco wacyi wargelin iyo wax sheegid fanaanku waxa uu ka tirsanaa hobolada waabari ee hoggaanka u ahaa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed mar walbana ka ilaalin jiray inay hog iyo godba ay ku dhacdo fanka iyo suugaanta Soomaalidu halkaasi waxa isla joogay gacantana ku hayay abwaaniin fara badan oo caan ah hadii aan hal iyo laba ka soo qaadana ay kamid yihiin abwaankii weynaa ee Sangob sida Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Cabdi Aadan Khays Maxamed Xaashi Damacgaariye iyo waliba abwaaniin kale oo waaweyn oo ka tirsanaa isla hobolada waabari lafdhabarna uu ahaa fanaankani waxa uu heeso badan la qaaday hobollo dumar ah oo aad u fara badan kuwaasi oo ay ka mid yihiin fanaanada Xaliimo Khaliif Barre Magool oo ahayd boqorada codka fanka Soomaaliyeed ahayd gabar mal walba ka yaabsan jirtay dadka nana noqotay dhidigii ugu wanaagsanaa inta heesta boqorada codka fanka Soomaaliyeed kuna hanatay biladii hufnaanta iyo kartida ay ku heshay ee qaaradda Afrika Hibo Maxamed Hodon oo laba ahayd ayadana Hibo Nuura waxa ayadana lagu naanaysi jiray hooyadii fanka Soomaaliyeed waxayna ku heshay hanaanka gobonnimada iyo waliba kalsoonida ay ku qabtaan nafteeda 3 Mandeekh 4 Saynab Cige oo ayadana ahayd ciyaariyaan gacanta iyo lugtaba ka ciyaara waxa ay ahayd fanaanad qof walba dareensiisa dareenka ay ayada ay ku heesayso iyo kuwa kale oo aad u badan si kastaba ha ahaatee Cabdi Tahliil Warsame aad ayay u badan yihiin kuwa ugu caansanse waxaa ka mid ah 1 heesta onkod oo yiraahdo onkod roobku ma daayo 2 heesta howlahaadii 3 heesta waayaha 4 heesta gobonnimo doon waxa ay si talantaali ah iskula luuqeeyeen fanaanada codka tolmoon leh ayadana ee hooyadii fanka lagu naanaysi jiray ee ah Hibo Nuura 5 heesta casar 6 heesta sida faras bulaalay 7 heesta jacayl ayatiin leh ee heestii ugaasana dadka qaar ay u yaqaanaano 9 heesta maxaan xambadeed u nacay oo ka qaaday shirkii Djibouti ee ka dhacay wadanka Djibouti ee qaaradda Afrika heesaha fanaanka inta badan waxa dhageysta dadkii hore dadkii dhexe iyo waliba dadka kale ee jiilka cusub ee hadda soo baxaya si kale hadii aan u dhigno fanaaniinta Soomaaliyeed ee caanka ah aad bay u badan yihiin
rag iyo dumarba way isugu jiraan waxaana ka mid ah fanaaniinta caanka ahaa ee inta badan geyiga Soomaalida laga xiiseeyo ilaa haddana heesahooda jir walba u yimaada ay ku raaxaystaan lambar 1 Maxamed Saleemaan Tube oo ka tirsanaa hobolada Waabari sanadihii 1967 ilaa iyo sanadii 2010 waxa uu ahaa ninka lagu naaneysa amba loo bixiyay ambahanta heybada fanaanka ambahanta heybada boqorkii codka fanka Soomaaliyeed lambar 2 Xaliima Khaliif Barra Magool oo ayadana ka tirsaneed hobolada Waabari sanadkii 1969 ilaa iyo sanadii 1993 waxaana lagu naaneysi jiray amba ay hanatay darajada boqorada codka fanka Soomaaliyeed tartankii lagu qabtay qaaradda Afrika tartankii loo qabtay qaaradda Afrika 3 Hibo Maxamed Hodoon Hibo Nuura waxa ay ka tirsaneed hobolada Waabari sanadkii 1974 ilaa iyo maanta waxaana lagu naaneysaa hooyada fanka Soomaaliyeed waxayna ku hanatay heybad darajo ixtiraam sharaf izayn ay la soo gashay fanka ilaa haddana ay kula dhaqanto 5 Cabdi Tahliil Warsame waa fanaanka hadda aan ka sheekeynayna taariikhdiisa oo kooban Cabdi Tahliil Warsame waxa uu ka tirsanaa hobolada Waabari sanadii 1971 ilaa hadda uu xanuunsan yahay waxaana lagu naaneysi jiray cod wanaagsane amba fanaankii codka wanaagsana 6 Maxamed Nuur Gariig waxa uu ka tirsanaa hobolada Waabari sanadkii 1970 ilaa iyo sanadii 1980 8 Qamar Maxamed Xuseen waxay ka tirsaneed hobolada Waabari sanadii 1994 waxaana lagu naaneysi jiray gabadha fanka waxa kale oo kamid ahaa Saalax Qaasim hobolada Waabari ayuu ka tirsanaa waxaana lagu naaneysi jiray aabaha fanka Soomaaliyeed Saada Cali Warsame Allah u naxariistay ayadana waxay hobolada Waabari waxayna soo gashay fanka sanadii 1979 waxayna lagu naaneysi jiray quruxdii fanka Soomaaliyeed Cabdi Nuur Alaale waxa uu kamid ahaa hobolada Jabuuti ee wadanka Jabuuti waxa uu ahaa fanaankii lagu naaneysi jiray ambaba ahaa fanaanka ugu heesaha badan fanaaniinta Soomaaliya Maxamed Mooga Liibaan waxa uu kamid ahaa hobolada Waabari sanadii 1971 ilaa iyo sanadii 1988 amba 88 Xasan Aadan Samatar Legend Weyn waxa uu kamid ahaa hobolada Waabari waxa uu kamid ahaa hobolada Waabari waxaana lagu naaneysi jiray libaaxa fanka Soomaaliyeed waxauna ahaa fanaankii labaad ee ugu heesaha badnaa marka laga soo tago Maxamed Nuur Alaale Axmed Mooga Liibaan waxa uu ka tirsanaa hobolada Waabari Maxamed Mooga Liibaan waxa uu ka tirsanaa hobolada Waabari Cabdi Qaadir Macallin Juba waxa uu ka tirsanaa asigana kooxda hobolada Waabari waxaana lagu naaneysi jiray yaraanka fanka Soomaaliyeed Umar Dhuule Cali waxa uu ka tirsanaa kooxda Ilays sanadii 1972 ilaa iyo sanadii 1998 waxaana lagu naaneysi jiray qaacigii amba kabangaraahii ugu wanaagsanaa fanka Soomaaliyeed Sahra Axmed kooxda Ilays iyo hobolada Waabari sanadii 1978 ilaa iyo sanadii 2004 waxaana lagu naaneysi jiray quruxda fanka Soomaaliyeed Faaduma Cabdullaahi Maandeeq waxa ay ka tirsaneed hobolada Waabari waxayna ahayd gabar aad iyo aad fankeeda loo jecel yahay jil walibana oo jeclaysto Umar Shawli waxa uu asagana lagu ka tirsanaa hobolada Waabari waxaana lagu naaneysi jiray madaalaha hobolada Waabari waxaana ku muteystay gabangaraacida iyo isla heesida hal waqti waxa kale oo kamid ahaa Axmed Yaasiin Digfeer oo ahaa boqorkii jacaylka oo lagu naaneysi jiray Digfeer intaasi waxa kale oo kamid ahaa Maxamed Xasan Lafoole oo asigana lagu naaneyso fanaankii ugu codka macaana fanaaniintii dhexe ambagiga Soomaalida ka kacday gidi fanaaniinta hobolada Waabari
intaasi waxay ahaayeen fanaaniintii ugu caansanaa amba taariikh faneedkii aan ka soo qaadanay fanaaniintii ugu caansan magacyadooda iyo taariikh faneedkii cabdi tahliil warsame waxaa halkaan idinka soo tabinaya anigoo ah cabdirasaaq cabdi nuur cagadahab inta aan ku kulmi doono qaybta labaad ee taariikh faneedka fanaaniintii geyiga Soomaalida aan ka ahaa kana mid ahaa fanaaniinta hobalada waabari iyo fanaaniintii ilays iyo fanaaniintii Djibouti-ba waxaa idin leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay dhammaan dhageystayaal daawadayaal sidaa iyo nabadiino waxaa halkaan idinka tabinaya anigoo cabdirasaaq cabdi nuur cagadahab waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadiino nabadgelyo